السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام على ودنيا فيكس سو دواده إن شاء الله halkan waxaan ku duubi doonaa cashir kaas oo walaalaha aad naga soo codsadeen caawin doonana walaalo kale oo badan cashirkaas oo ah khaladaadka sameeyaan traderska cusub qaybtii koobaad part 1 wuxuu yeelan doonaa insha Allah qaybo kale oo badan oo soo wadno haduu Ilaahay yiraahdo qaybtan waa qaybtii koobaad waana part 1 haddii cashirkeena hore aan u galno inta waxaa noogu diyaarsan soo qoraal ahaan oo word ah waxaan filayaa inaad aragtaan insha Allah meeshaan aan ku sharxeynaa cashirka waxyaabaha aan ka baranayno cashir koowaad aan ka baranayno khaladaadka walaalaha ay sameeyaan cusub trade meel ka sugayso meeshii intu trade meel ka sugayso meeshii intuu gaarin ka hor ha isku dayin inaad geshid tusaale maxaan ka wadnaa trade kan hadda haddaan tagno lacagtan hadda aan isha ku haynay lacagtan haddaan hadda tagno lacagtan waa eurocard waa NCD kaadan ka wadaa waxaan ka suganaynaa inay high value areas noo tagto inay high value area noo tagto si aan macnaha aan uga faa'iideysano marka trade-ka hadii aan jarno hadda halkaas ka jarno saawada jeedaan trade-kan waxaan ka suganaynaa inuu halkaas noo tago oo intuu saan noo sameeyo saas noogu tago qaabkaas corrective-ka inuu noogu tago kadib marka uu soo dhaco aan falaag u horeey ka qaadan qof marka wuxuu ku leeyahay soo halkaas ma tagay intaan meeqa ku jirto meeqa biiba ku jirto intaan 130 biib 130 gaab maxay dhaafay trade-ka duub halkaas tagay lahubo waa sii gala 130 kaas ka faa'iideysana 130 kii kama faa'iideysan inuu xusumeey uu gal trade-ka khalad uu ku fududaaday wuxuu isdhaay gal intuu ka galay asalkii waxaan ka dhiganaa oo dhahay ilaa 30 biib wuxuu dhahay 130 kaas biib waan ka qabsanaa uu galay trade-kii waa khalad buu sameeyay waxay ahayd inuu sugto high value area soo gaarin oo trade-kii meesha ka horeeyay soo galay waxa ku dhacay isla markii waa kaas asalkiisa looga dhacay trade-kii asalku ku dhacay halkaasuna khasaaro ku qaatay marka qofkaas oo kaleeto waa qof oo macnaha uu degdeg qaaday khalad uu galay khaladkiisina waa lagu ciqaabay trade-kii uu ka saaray marka maxaan ka baranaynaa waxaan ka baranaynaa in aad trade-ka jihada high value area asoon ku imaanin aad dhihin waan ka sii faa'iideysana oo ku sii ordin trade-ka sug markuu high value area halkaas ku imaado ka faa'iideyso waxa rabtidna ka samee qofkii markii inta uga soo dhacday SL-ka oo dhahay trade-kan anima khaldaneen asaa khaldana qof kasta wuxuu eedeynaa suuqa wuxuu leeyahay trade-kan anima ana khaldaneen suuqa khaldana SL-ku iga dhacay inta markuu imaado marka kama faa'iideysanayo move-ka dhan ee weyn kama faa'iideysan doono waayo wuu cabsanaya ilaa uu sugan waaye tookada hore asaa sugan waaye wuu cabsanaa suuq banaan ku istaaga marka qofkan khalad koobaad waa kaas waana khaladka ugu weyn ee in badan dhaco haddii aan hore usii soconno aan ka labaad tagno ka labaadna waxaa waaye lacagaha top pairska oo top 6 kaaga ah oo aad sugayso inay ku tagaan high value area lacagahaas markii ay inta is dhameystirayaan lacagba waxay meesha ku tagtaa baatan gooniya baatanka uu yahay waxa laga rabaa inaad si fiican u xaqiijiso baatanka uu yahay inaad si fiican u xaqiijiso haddii uu meel kore ku sugaysay baatanka ma descending ba ma racing wage ba maxay ku imaatay lacagta maqaab corrective ay ku imaatay oo saan ah maqaab structure ay ku imaatay oo saas ah oo batan within batan ay ku imaatay adiga inta trade-ka aad qaadanin lacagti meesha aad ka sugayso markay imaato batanka ay ku imaatay iska xaqiiji inuu batan ku saxan yahay iyo inuu wax ka khaldan yahay marka aragtid inuu batankaas ku saxan yahay kadib lacagtaas ka shaqeyso
waxaan filayaa dadkii oo inta badan inayna garanaynin baatanka ay ka trade garaynayaan iyo waxa ay sameynayaan inaad baatanka garatid waa muhiim waayo baatanka haddaad garanaynin 90 rulkiisana ma ogaan doontid 90 rulka markuu halkaas ma trade intuu halkaas ka soo dhaqaaqo inaad 90 rule ku manage garaysaa rabaa break even ka isticmaasho hadduu biis badan ku dhaqaaqay correction korkiisa asal keensto aad trade ka isaa ku manage garayso laakiin haddaad garanaynin baatanka aad ka trade garanayso way adkaanaysaa in macnaha aad sameyso saas haddaan hore usii soconno cashirka saddexaadna waxaan ka badanaynaa lacag kasta oo kula qurux badnaataa oo ruleska aan waafaqin ha qaadanin oo sharcigaaga ha khilaafin lacagtan lacag waxay ii samaysaa leedahay lacagtan waxay ii samaysay waxay ahayd oo kale qaybtay oo soo kale ahayd relena meesha ku yaale waxay ku imaatay 123 ay ugu imaataa leedahay 123 kala ku jiray 123 halkaas lacagtii joogtaa iska soo qaadatay lacagta 123 ga aday ismoodsiisay waxa laga yaabaa inuu sii dhiman yahay oo 12 bas ay tahay oo 3 uu dhiman yahay inta ka qaadatay asalkaaga halkaas aad dhigatay waxa dhacday ilaa halkaas 90 gaas la sii soconaya asalka lagaaga dhacay 3 ga la soo sameeyay kadib toos loo soo laabtay marka maxaa laga yaabaa adiga structure qurux badan waa heshay structure uu ku saxnaa laakiin maadan iska xaqiijinin inuu 123 oo dhameystiran yahay confirmation maada ku qaadan confirmation maxay inaad sugitid impulse flag ugu horeeyo 15 minutes ka waa the highest probability flag waa flag ugu faa'iidada badan waa flag kana dabaratid suuqa in badan wax waa ka sameynaysaa aduu ilaahay raad flagan inaad sugitay flagan waa sugan way Soomaa 1 hour aswaa inaad sugitay ama aad iska dhaaftid kan aad reduce ka sugitid impulse labaad markuu dhaco impulse yar ku dhaco flag 15 dhaco impulse labaad dhaco impulse yaas labaad flag uu sameyn doona 1 hour flag ka sugo kadib trade ka halkaas ka qaado inta risiga 123 arka askiga boodila suuqa waxaan filayaa taasna inaad fahanteen oo si fiican u fahanteen horaan u sii soconayna insha Allah qaladka cashirka afraad asna maxaan ka barnaynaa qaladka kaleeta waxa waaye inaad suuqa eritid suuqa ha erinin oo suuqa ha pressure gareenin suuqa ilaa uu ka imaanayo zoonka sugo zoon kasta waxa ka dhaco falaag gooniya haddii la joogo maxaan ku dhahay green zone inta badan waxa ka dhacaan falaagyada 15 minutes ka 1 hour ka aaga retrace-ka waxaas dhan meeshaas ka dhacaan haddii la joogo amber zone waxa ka dhaco large flag haddii la joogo red zone asna waxa ka dhaco falaagyada kale ta ka dhacaan sida large flag red zone ka dhacaan waxa ka dhaco kale to reversal pattern inta badan meeshaas ka dhacaan waa red zone waa meesha suuqa aan laga gelin uu ka soo kala wareego khaladadka ugu weyn waa asaga macna traderada cusub ay galaan red zone ka trade ka qaadanayaan uu ku kala wareegaya kadib asalka ugu dhufanaya suuqa eedeynayaan suuqa ma laha adaa iskale isku day adiga inaad waxa sameynaysa aad baratid wixii ma taqaan red zone waxa lagu dhahay iska ilaali waa iska galay khaladka yaal marka adaa iskale marka lacagaha aan ruleska ku waafaqin oo aad hadii aad ahayd qof rules leh oo ka trade gareey tradeda reversalska suuqa meelaha dhexe falaagida ha ka qaadan isku day inaad ruleska ixtiraamtid markasta oo rulekaaga ay ka adkaatid oo ixtiraamtid waa markasta suuqa guushiisa ay ku dhowday waxaan filayaa cashirka taas inaan cashir ka baranay oo ayadana hore uga sii soconno tan shanaad ayadana waxa waaye lacag walba waxay leedahay qaab gooni ay u dhaqaaqdo u tixgeli qaabkeeda lacagaha hadda maxaan ku dhahay NCD kaado kaleeto waa lacag corrective ku socota inta badan corrective keeda iska badan lacagta impulse inta sameyso ee correction gasho impulse kale correction gasho impulse kale way ku adagtaa ayada saana sameynayo soo dhaqaaqay saana waxay dhaqaaqa hadana saana labadan marka isku mid baa labadan dhaqaaq waa maya dhaqaaqan waa impulse correction dhaqaaqana waa impulse correction yar badan impulse kale yar correction kale impulse kale marka lacag ka dabeecad leedahay NCD kaad oo kale markay saan dabeecad tahay inta badan lacag dabeecadan leh ee saan impulse correction kan si toos ugu dhaqaaqdo lacagtee waa USD ZAR waa lacag ayadana dhaqaaqeedu qurux badan yahay impulse correction keedu uu saxan yahay hadii lacagtaas structure qurux badan aad ku heshid oo halkaas aad ka qaadatid
waa la hubaa ilaa meeshaas inay si nadiif kugu gaarayso waa hadduu structure-keeda ku saxan yahay marka lacag walba waxay leedahay dabeecad gooni ah baro dabeecadeeda backtesting ku samee dib ugu laabo waxaa la dhahaa bear behavior waxa la dhahaa jiro marka dabeecadeeda soo baro lacagta intaada ka trade galaynin ka hor lacagaha dabeecadeeda aqoonin ha ku degdegin baro lacagaha dabeecadahooda cashar kaliya waxaa waaye haddii aanad u jeedin baatan xaqiiqsatay ha isku gelin trade-ka haddii uu trade-ka xataa si fiican u daadan rabo baatanka aad ku trade garaynaysid waa inaad ogaatid horaa uga soo hadalnay taas haddaan hore uga sii soconno oo cashirkeena u dambeeyo aan ka baranayno aan fiirino waa newska maalmaha newska jiro su'aalaha ugu badan ee ugu tirada badan ee lisoo weydiiyo waa newska suuqa ma saameeyo ee structure-ka ayuu sii dhamaystiraa waxaa laga yaabaa suuq oo aad ka sugaysay meel value area kuu soo socday oo korkaan ka soo socday oo ku jiray correction large correction iskaga jiray oo red zone soo maray waxaa laga yaabaa in newska intuu soo bush gareeyo oo suuqii meeshii aad ka sugaysay halkan ay ahayd uu imbalse ku jabiyo oo haddana tartiib newska markuu dhamaado uu retrace soo sameeyo structure siisku uu saxnaado flag halkaas kaa siiyo tartiibtiisu soo laabto awalba meesha suuqa waa ka sugaysay high value area ku ahayd jibintaas la jabiyey maxaa lagu jabiyaa leedahay suuqa maxaa lagu jabiyey ma corrective ahaan baa loo jabiyey ma imbalse lagu jabiyey ma maxaan ku dhahay structure ahaan loo jabiyey imbalse lagu jabiyey markastoo meel high value area imbalse lagu jabiyey maxaa suganaynaa istaraatiijiyadana waxay noo sheegaysaa in retrace u dhici doono retrace markuu dhaco kadib aanan suuqaas aan dhaqso ku degdegaynin dad waxaa jiraan retrace ka qaato markuu saas retrace ku dhaco qaato marka retrace markuu dhaco haddaa qaadatid waxay noqon kartaa inuu noqdo retrace flag large uu sameeyo oo large flag intuu kugu noqdo oo kadib uu trade-ka hoostiisu sii socdo waa macquul continuation waa large flag haddaa aragtid waa continuation waa naqaanaa marka large flag intuu kugu dhici lahaa waxaa fiican retrace markaad sugotid inaa flag u horey ka qaadatid flag haddana inta maa ka qaadanaynaa maya flag halkaas banaanka markuu usoo baxo kana soo baxa aan qaadanaynaa asalkeena halkaasaan dhiganaynaa ilaa ay meeshaas ku manage garaynaynaa waan la sii soconaynaa waxaan filayaa inaa ayadana aad u fahanteen suuqa news dambe ayna ka walwali doonin oo mahadsantihiin cashirkeenii baarti 1 khaladaadka traderada cusub ayuu ahaa insha allahu baarti 2 baarti 3 waa imaan doonaan kana waa baarti 1 hadduu ilaah iraado asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu walaalaha kale sii gaarsiiya walaalaha nagu cusub youtube-ka ka daawanayo kusoo biira jiraan waxaan leenahay telegram la dhaho wadani fx kaasoo aan ku midoonay walaalo dhan 1200 qof ka mid noqo si aad noola faa'iidid casharadana aad meeshaas aad ka helaysa hadduu ilaah yiraahdo cusub ee mar walba aan soo dhigno howlo badanaa meesha ku qabanaa kasoo wardoon insha allah waa meel aad ku cajabin doonto waa mahadsantiin channelka youtube-kana subscribe hala saaro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu